ومؤمن ضعيفة ضعف وهدو حد قالوا لكن النبي هدنا وحولي وفي كل خير لما أنت خير باكو الصغير وأسلوب علماء البلاغة إلى هذان أسلوب الاحتراز يعني أنت الله شاقي مؤمن والله تلمامي مؤمن كقوي قاينو كان كلك في عيني سيانا دون مودين كان لك في عيني ويسقوا إبري هيان وحباهين هي لو هذا يسقونا ما مرنا مر هدو مؤمن بيهي مر هدو مؤمن بيهي يسقونا ما خير لا سو قرانكم ما يدرنا إلى هيوله مصينا القاعدون يكوي الدرا أما قرآن كوله أن كوي قبل الفتح كوي إنفاق السمية إلى درتو الله مصنا كوي بعد الفتح تكلمي لكن الهم حلو وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى الله بضبا إلهي ونقبو بلن قاضي تمعن هدو حويا إلهي وحلي وفي كل خير إيمان بقف كهدولة يدقال يا منافق يا كوحدة نردمك خير بدي حكا في عين سادر هديد بوحة اللي هو في كل خير تلاد الله بعد ونبغو ينصيني عليه الصلاة والسلام وطن احرص على ما ينفعك أبو حولي كد دال وحكوا أنفعية وحكوا أنفعية كد دال waxa aynu qabanaa saddex qaybood bay u qaybsamaan wax wax anfaca iyo wax wax dhiba iyo wax bilaa macno ah soo tama shaygu ama manfac buu leeyahay ama madar buu leeyahay ama waa ma la yacni waxaan qiimo lahayn waxa wax anfaca ku dadaal buu nabigu yidhi macnaheedu waa maxay labadan kale ka tag wixii wax dhibaya isaga ka fogow wixii waqtiga ka luminaya aan faa'iido adduunyo mid aakhira toona lahayn isna iskaga tag dhalinyaranimadu inta ugu badan leh in badan oo ka mid waqtigooda wuxuu ku lamaa ma laa yanfac walaa yadur haddaanu durkaba u xaggiisa xigin inta badan dhalinyaradu inta yare iskuulka tago ama masaajidka uu labada kitaab ka akhrista mooyaane inta kaloo dhan bilaa macno wadaa waa ninka dhalinyarada inta badan waqti aad u badan buu haystaa ila mas-uuliyadii ma saara caruur kama warwarayo mas-uuliyad kale ma saara shaqo kuma sii socdo inta ugu badan leh markaa ninka dhalinyaradii inta badan wuxuu garan waayaa waqtiga wuxuu ku qabtaba maadaama aanu garanaynin waqtiga wuxuu ku qabto inta badan bilaa macno kaga lumaa meelaha fadhiso oo iska sheekee maanta oo dhan maqaaxi fadhiso sheekee ama kubad iska ereeri ka ereriyayaaba la qaatee iska daawo kan daawanaya waxba heli maayo indhaha xanuunaya un tv-ga hor fadhiyo indhuba ku daalaya labada kan ereriyaya waxaaba laga yaabaa in la yidhaahdo jidhkaa u dhismay ama wuu daalay ama exercise baa buu sameeyaa laga yaabaa laakiin ninkan intuu kursiga hor dhigtay ee daawanaya si waxba heli maayo النبي وحول احرص على ما ينفعك كد دال وحيك أنفعية وحاسي أما منفع الدون هيش أما منفع آخر هيش الدون كذا كد دال وحيك أنفعية وحبر شهديتي شقة هديتي وحكى هديتي وحين الدون كمنفع قوله الشرع يقول لي هي كد دال بالغوري وحكى له يقول كد دال محي وحين منفع آخر له ولبا علماء واحد هذا لبدا منفعتي اسخلافان كي الله الرئيسية منفعة آخرة الله الرئيسية هذه أرنو النقضاء ولا يضيع وحا قبطه وحقا العقل وتهري لكن صلاة دينوي كاتقيسة كيف هذا الرئيسية نسا الصلاة كهر الرئيسة منفعة دنوية واجبات كد أخروية أبا كهر رئية محي منفعة دنوية سأوى النبي حلي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك وروحك وأنفعية كد دال النبي لي والله شاهد وحك استه وقت قابا أما آخرها كو وجرو أما أدونها كو وجرو وقت قاد هاي سطا
dhalinyaradu marka horena waqtigu ka dayacmaa hadhow dadku markay gaboobaanna waxay yidhaahaan hadda berigaan dhalinyaradahasaa yeeli lahaa hadda sidaa yeela waxba markaa haddaadu ma tarayso iminkaa haysataan waqtigu yoo idinka lumi waqtigu idinka lumi waa waxa ugu qaalisan ee aad haysataan waa raasamaalka ugu badan waa waxa aan la iibsan karin oo la bixin karin oo lama ahan karin oo meel kale laga soo heli karin daqiiqada ku dhaaftaa dib u soo heli maysid dunida ka ugu bilyaneersan soo heli maayo idan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa ixris calaa maa yanfacuk war waxa ku anfacaya ku dadaal oo wastacin billaah ilaahayna kaalmayso ilaahay kaalmayso waa maxay ma jiro qof isku filan qofka mu'minka ahi wuxuu rumaysan yahay laa xawla walaa quwata ila billah wax waliba inay ilaahay gacantiisa ku jiraan saa daraaddeed qur-aanka waxaa laynoogu tilmaamay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin baad maalin kasta tidhaahda ilaahu adigaanu ku caabudaynaa oo adaanu kaalmo kaa dalbaynaa ku kaalmo weydiisanaynaa waxaa layna faray markaa uu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wastacin billaah ilaahay kaalmayso gargaarso sida ogeed baa qofka muslimka wax kasta uu qabanayo bismi illah buu ku bilaabaa bismi illaahidani waa maxay yacni tastaftix wa tastaciin waxaad gargaarsanaysaa ku furanaysaa wax walba ilaahay magaciisa ilaahay baad rabtaa inaad gargaarsato markaa wastacin billaahi buu nabigu ina leeyahy calayhi salaatu wasalaam wixii ku anfacayana ku dadaal oo ilaahay kaalmayso oo walaa tacjaz ha caajisin dhalinyaradu inta badan waxaa ku dhacda markuu ama wacdi soo dhegaysto ama iskuulka wax ka soo dhegaysto ama waxa kan maalin laba buu xamaasadoodaa dabeetana waxaan isku dabari hadhow markay laba cashe gaadhana farhu ka qaada nabigu wuxuu ina leeyahy calayhi salaatu wasalaam walaa tacjiz ha caajisin ha awood beelin ay istamir fi lcamal daacada ilaahay iyo camal maadaama lagu yidhi ku dadaal wixii ku anfacaya oo ilaahay tala saaro waxaa lagu yidhi kun mustaqiiman cala hada ariiq walaa tacjiz ha caajisin oo ha ka caajisin inaad maxay camalkaagu uu googo-o nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa acmaasha waxa ugu fiican ka la daa'imo la joogteeyo nabigu hadduu shaqo qabto waa joogtayn jiray qofka muslimkii waxaa fiican jadwal intuu samaystay inuu ku dhaqmo jadwalka marka hore waxba ha buuxinin waxaanad qaban karin haddaad marka hore ku rarto hadhow wadi kari maysid laakiin inaad qaban karto ka dhigo dabeetana wad markaad intaa ka adkaato haddii wakti kuu soo hadho haddana wax kale ku buuxi wad waa inaad caado ka dhigataa inaad wax joogtayn karto qur-aan aad qaybta ha noqoto cilmi aad barata ha noqoto shaqo aad qabsata ha noqoto wuxuu doonaya ha noqdo wixii khayr ku jira manfac ku jiro joogteen dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidka ku gabagabaynaya wain asaabaka shay-un falaa taqul haddii markaad intii lagu faray adigu aada samayso wax dhacaan sidii aada moodaysay ay noqon weydo ha odhanin low anii facaltu kaana kada wa kada haddaan sidaa yeeli lahaa sidaa yasa ha murugoonin ee waxaad tidhaahdaa qadara allahu wamaa shaaa facal ilaahay baa qadaray wixii uu qadarayna rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa dhacaya waayo lowda nooca kani waxay furtaa buu nabigu yihi albaabka shaydaan waa tufta camal shaytaan waxaad ogsoonataa wallahu gaalibun calaa amrihi walaakina akara annaasi laa yaclamuun adduunkana ilaah maamula buu leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu doono unbaa ka dhacaya waxaad adigu mooday maaha waxa dhacaya wixii rabbi go-aamiyaabaa dhacaya laba adigu ma ogid waxa faa'iidada badani ku jirto ilaahay baa xakiima oo wax walba meeshuu ku habboonyay dhiga adigu ma garanaysid si awgeed baa qur-aanka ilahay wuxuu inoogu tilmaamaya wacasaa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum wacasaa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum waxaa la arkaabaa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala inay idinku wax jeceshiin inay sidaa u dhacaan oo uu idin yahayba shar
waxaad ka hatana waxa laga yaabaa inuu kuu yahay maxay khayr. idan alqadaa walqadarna aamin marka hore adigu wixii lagu faray iyo asbaabtii iyo itaalkaagu intuu ahaa iyo allo aad gargaarsato la kaalay, marka dambena wixii alla qadaray raalli ku ahaw. waayo lowlowdan dambe aad akhrinaysaa horta wixii dhacay waxba ka bedeli mayso, adigana tiiraan iyo murugumay kugu kordhinaysa. marka albaabkaas ka xidh, wax tegey adigu waxba ka bedeli kari maysa, waa sidii uu dhacay. haddii sidaa la yeeli lahaa, haddii sidaa la yeeli lahaa, haddii sidaa la yeeli lahaa, dee haddii sidaa la yeeli lahaa lama yeelin, mana suurtagal aha in la yeelo, way tagtay. iminka maxaa yaalla? waxa yaalla inaad adiga murugo kugu haynin, waxa yaalla hadda shaqada aad haysa inaanay kaa mashquulin, waanad murugo meel la fadhiisanin iyo inaad dawakdaa waxba tari mayso. idan baabkaasi waa baabka shaytaanku dadka ku wareeriyo, waa camal shaytaan buu nebigu yidhi lowda noocaasi. marka waxa meesha yaallaa wuxuu yahay ou nebigu inogala talinayaa mu'minka xooga badan baa ka khayr badan mu'minka daciifka ee diintiisu dacfigu ku jiro. labadubana mar haddii iimaan laga helay khayr bay ku sugan yihiin. waxii ay anfac kuugu jiro adduuniya aakhiraba ku dadaal, ilaahayna kaalmayso oo gargaarso, hana caajisin. waxii dhace ee tagana ilaahay qadartiisa raalli ku aho. xadiidka sheekhu uu cinwaanka ka dhigtay isagoo kooban intaasaynu ku tilmaamaynaa. sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasallam.